وهالكي قاريه dharaar baa iman doonta dadka sool iyo awdal ee aadanow hagrateen raacdadoodu adkaato lagu raadsheegay waxaan jeclahay inaan iftiimiyo shirkaygan jaray ma aha mid ku wajahan weerarka kursiga madaxweynaha ee wuxuu daaran yahay dardaarankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ee ahaa u hiili walaalkaa haddii laga gardaran yahay iyo haddii uu gardaran yahay sawirka guud ee maanta dalku marayo ma aha mid qurxoon wuxuuna dib ii xasuusiyey midhihii ka dhashay talaxumidii 60kii isna weydiiyey sida bilaa gorgortanka ah ee ay labadii dhinacee midoobay dhankii kale ku qaateen dhammaan mansabyadii iyo manficii dowladnimada baadigoobkii jawaabtaas waxay noqotay inaan lala tegin talo iyo qulub midays ifafaalaha ii muuqda wuxuu i tusayaa talo xumo iyo kala qaybsanaan ka qota dheertii hore lagana yaabo in maxsuulkeedu ka cirib xumaado tii 60kii haddaan labdaba qaban oo aan eebbe caymin abwaan gaariye allahu naxariistee wuxuu yidhi berigii isticmaarka taladii la ilduufay burburkaad aragteen iyo hadday keentay inkaarta allana i tusi waayo anna maanta gafkaygu inuu aasayo miino ubadkayga u taal nasiib darro in muddo ahba waxaa ka hana qaaday geyigayga siyaasad kooxaysan waxaynu wada ogsoonnah in nuxurkii halgankii adkaa iyo curashadii somalilan ujeeddadeedu ahayd inay dalkeenna ka suusho cadaalad darradii iyo dulmigii midabada badnaa ee ina soo maray mid shakhsi iyo mid deegaanba lana dhiso bulshaweynta somalilan bari iyo galbeed oo nabdoon midaysan meelna u wada jeedda dhib iyo dheefna u siman waxay cabashooyin sii kordhaya ka soo butaacayaan gobollada awdal iyo salal iyagoo ah hoygii midnimada somalilan loomana muujin waxgarowshiga himiladii iyo dadaalkii sixitaanka ee tabliiqiga siyaasadeed ee u waday brofesor axmed ismaaciil samatar ee xambaarsanaa xal nabadeed iyo somalilan la wada leeyahay waxay ku dambaysay inay tis qaadi weyday lana siin waayey mudnaanta sidoo kale waxaa jihaala-aan u deldelan gobollada sool iyo sanaag bari waxaana cad in marka laga tago ciidan mooye aan wax horumarinay ka jirin waxaana ka aloosan dhaqdhaqaaqyo liddi ku ah nabadda iyo xasiloonida haldoorkii u yimid ee uu cali khaliif hoggaaminayana waxay ka huleeleen dalka kadib markay la kulmeen bahdilaad iyo niyadjab waxaa soo durkaya xuduudkii dalka ee sanaag bari iska daagarowshiyo iyo baadigoobka xal qancin kara bulshada ee waxaan ka arkaynaa warbaahinta iyadoo ciidamadii qaranka ee tabashada qabay loola dhaqmay qaab ka baxsan milgaha maamul iyo ka ciidanba laguna sheegay calooshooda u shaqaystayaal iyo basaasiin inagu dhex jiray inta hadhayna loogu baaqay inay ka daba tagaan taasoo micnaheedu yahay in la inkiro xuquuqdoodii muwaadiniinta iyadoo raggaas ay ka mid ahaayeen qaar badan oo tiraba dhowr jeer u dhaawacmay difaaca qaranka somalilan duruufo adagna ugu dhabaraday waa halkii gaariye dharaar baa iman doonta dadka sool iyo awdal ee aadanow hagrateen raacdadoodu adkaato lagu raadsheegay waxaa muddo dheer
aragtida siyaasadeed ee ku dhisan kala qaybi oo xukun fogeynaysay sokeeyihii haldoorkoodu intii badnayd ku la'atay sidii dalkan iyo dadkuba u xoroobi lahaa inkastoo ay muujiyeen inay oggol yihiin qarannimada Soomaaliland iyo la shaqaynta hadba hoggaanka jooga waxaa loo sawiray inay yihiin cadow maantana waxay ka aradan yihiin manfac iyo mansabba waxay xaq iyo xuquuqba u lahaayeen waxaa kala shaki iyo isubahalagelin la kala dhex dhigay iyaga iyo walaalahood taasoo wiiqday muuqaalkii wada jirka ee qarankeena nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ummaddiisa kula dardaarmay inay karaameeyaan kuwa beelahooda iyo bulshada dhexdooda karaamada ku leh qadiyadda Soomaaliland oo ah mid aan u soo halgamay aaminsanahayna inay danteenu ku jirto ku mira dhali mayso in naxli la kala dhex dhigo bulshada reer Soomaaliland iyo shacabka kale ee Soomaaliya mana aha inay noqoto mid hergelinteeda lagu baadi goobo ciil caro iyo xiqdi dhibaatadii loo geystay reer Soomaaliland looma aanayn karo dad shacab ah balse waxaa geystay oo ay tahay in lagula xisaabtamo taliskii Maxamed Siyaad Barre sida aan maantay dhibka xukuumadda Muuse Bixi geystaa aan beel iyo cid kale toona loo aanayn karo inkastoo jiraan intaasoo mugdi ah oo isa saaran waxaan u arkaa in shirka dhowaan laga cilaamiye Burco noqon karo mid badbaado qaran shirkaas waa mid dhaqan oo turxaan bixin kara dibna u yegleeli kara inay kalsoonidii walaaltinimo soo noqoto waxaan ku talinayaa in shirkaas inaan shirkaas lagu soo koobin oo aanu ku soo idlan labada beelood oo keliya ee gogoshu noqoto mid furan oo turxaan bixisa kulmisana beesha dhexe ee la kala irdheeyey iyo beelaha kale ee Soomaaliland dhammaantood Dr. Maxamed Cabdi Gaboose waxa uu talooyin u soo jeediyey madaxweyne Muuse Bixi Cabdi waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland kula talinay kow madaxweyne waxaan kugula talinayaa inaad meesha ka saarto siyaasadda kooxaysan oo loo aanaynayo kala irdhaynta bulshada ummadana aad dhex noqoto labo inaad garowshiyo iyo xaal ka bixisid deelqaafkii ummadda ku dhaqan sanaag bari ka soo gaaray jaranka ciidanka qaranka inaad mudnaan gaara siiso tabashada gobollada awdal salal sool iyo sanaag bari kuwaasoo la'aantood aanay jiri karin Soomaaliya inaad hoos u eegto cabashooyinka beelaha iyo raadadka ay reebtay doorashada inaad ka waantowdid xarigga wariyaasha iyo cid walba oo fakarkeeda saliimka ah cabirta xorriyaddiina u soo celisid muwaadiniinta u xiran aragtidooda sideed inaad si dhaqso ah isugu yeedho waxgaradka iyo waayo aragga ummadda kalena tashato xaaladda adag ee dalku maanta maraya iyo sidii looga bixi lahaa sidoo kale waxaan waxgaradka ummadda ugu baaqayaa inay fadhiga ka kacaan oo ay yaqiinsadaan in waxa laysku hayo ay ka weyn tahay waxa aan isku nahay waxa laysku hayo inay ka weyn tahay waxa laysku yahay beerkoodana burcad isku mariyaan haddii hoggaanku wanaagsanaadana horumarkooda iyo wadajirkooda ku dhaqaaqana ay taageeraan wabillahi